Sheekh Maxamuud Maxamed Shibile oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay howlgallada looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab isagoo bogaadiyay guulaha laga gaaray. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay banaysteen dhiigga dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, isagoo tusaale u soo qaatay qaar ka mid ah qaraxyadii ay fuliyeen sidii kii Zobe oo kale. Waxa Soomaaliya ka socda waa dilaa Islaamka, waxay leeyihiin gaalo ayaa la dagaalamayna oo suuqyadii iyo hoteeladii ayaa nag laga dhigayaa. Gaalada kale ee dalka joogta oo inaga ahayn waayo marka laga reebo niman AMISOM oo taangiyo ku jira iyo kuwa xalane difaaca kaga jira maba la gaaraye, ayuu yiri Sheekh Shibile. Wuxuu intaas ku daray gaalada la laynaya ee lagu jihaadayo oo dhiigoodu xalaal yahay oo Ilaahay loogu dhowaanayo oo inta muuqaalo soo duuban ay leeyihiin murtidiinta ayaan nag laga dhigayaa. Waayo waa suuqa Zobe iyo hoteeladeena dadka jooga ee muslimiinta ah. Sheekh Shibile oo goob fagaare ah khudbad ka jeedinayay ayaa sheegay in xukunka khawaarijta Al-Shabaab uu yahay in la laayo qof go'aankiisa uu yahay muslim inuu laayo, shaqadiisa uu fulinayana ay tahay muslim in uu gumaado. Diin ma ahaan dhalan rog, dhaqan ahaan dad gumaad ah oo xoolahoodu xalaal u yihiin oo dhiigoodu xalaal u yahay. Dadka saas oo kale ahaa hadal iyo waan ma anfacdo, laaya meesha aad ku aragtaan, ayuu yiri. Waxa uu Sheekh Shibile xusay in ijiita aan ku jide ay tahay in kooxda khawaarijta Al-Shabaab meel dhexe looga soo haro. Waxa uuna tilmaamay inaysan lahayn islaamnimo lagu daayo, isagoo hoosta ka xariiqay in xalka kaliya uu yahay in la laayo oo la iska dhiciyo. Waxa uu ugu dambeyntii Sheekh Shibile shaaciyay in xitaa dambi ay tahay in loo gargaaro, isagoo in natiijadooda ay xukun ama ay xun tahay haddii dadka lagu sii daayo. Waxaana uu tusaale u soo qaatay dhiigga dadka muslimiinta ah oo ay daadinayaan iyo inay xoolaha ummadda xoog ku qaataan. Hadalka Sheekh Shibile ayaa imaanaya iyadoo gobollo ka mid ah dalka uu ka socdo dagaal ka dhan ah kooxdan, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ugu dambeyn u soo jeesteen in ay iska dulqaadaan cadowga maalin kasta gumaadaya.